السلام عليكم كلنتي هابون صاحبيال halkani waa SPTV Somali People TV isha shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu la yeelan doono Cabdiweli Maxamed Cabdiweli CPA oo ah qabiir xagga CPA-da xisaab raaca canshuur bixinta iyo la talinta ganacsatada Cabdiweli Maxamed Cabdiweli CPA sharaf ayuu tahay caawa inaad marti inoogu tahay SPTV xarunteena magaalada Columbus ku soo dhawow jaaliyada Columbus iyo studio-naba عمر ولاكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوهي دمان هالكان حنك سلامة يا أذيك يا بحذا كحرن SPTV أوهايو ناسين ولاكي سودو عبدولي رنتي واحد كم تعددك الصومالية حقوقها الكوعة أرمها حساب راعة عنشر بحنته لا تلنت جناح الصوماليين أنت عن البرنامج كوجود قلين حق حساب راعة أما جناح الصومالية وحيقوم مقالها إن بريتو برنامج وين أو سيميناره aad ku leedahay magaalada Columbus bal waxaad inoo warantaa seminaarkan wuxuu ku saabsan yahay iyo howlaha aad qabatid iyo barnaamijka berito dadka ka soo qayb galay waxaad ugu tala gashay barnaamijka mahadsanid waa runta horta seminaarkan waa seminaarkii labaad oo aan u soo bandhigo dadka jaaliyadda aan ka dhashay Soomaaliyeed kii ugu horeeyay waxaan ku qabtay magaalada Minneapolis bishii hore runtiina aad bay uga dhaceen dadka Soomaaliyeed Umarow kulliba adba qabiir baa tahay wala socota alxamdulillah Soomaalida waa dad wadankan Mareykan la qabsaday kana faa'iideystay fursadaha wadankan leeyahay waliba xataa ganacsiga saasoo ay tahay wadankan waa wadan qani ah waana wadan runtii sharci badan sharciyadana waa sharciye runtii adag markii la fiiriyo saasoo ay tahay ayamahan waxaa soo ifbaxayo walaal Soomaaliyeed oo runtii xagga ganacsiga uga imaanayo ma dhihi karo dhibaato laakiinse waxa loo yaqaano challenge ama adeegaas oo ay ka mid yihiin habraaca ama xeerarka u degsan wadankan markay tahay xagga ganacsiga markay tahay xagga canshuur celinta ama canshuur bixinta iyo xagga xataa la talinta ganacsiga saasoo ay tahay aniga ayaa waxay ugu dhalisay in bal aan ku bixiyo daruusaad luqadooda xataa aan ku hadlayo waayo badankood waxaa laga yaabaa Umarow waana run in qof ganacsatada ah uu la macaamilayo qof anoo kala laaks ajnabigaasna uusan si faahfaahin dheeri ah uusan ugu siinin sharciga saasoo tahay anoo ka turjumaya baahidaasayto waxaan go'aansaday in aan si tabarucaad ah aan ku siiyo bulshada Soomaaliyeed walaakay barnaamijyada badan aad ka hadashid waxa kamid ah xisaab raaca oo muhiim u ah ganacsi walba waxaad inoo sharaxdaa hal iyo labo maxay tahay xisaab raaca qaabka ugu muhiimsan ee xisaab raaca loo sameeyo waa maxay haddaan dib u laabto Umarow adduunka wuxuu ku dhisan yahay xisaab xisaabtuna waa inay dheelitiris leedahay waa inay wax kasta iskeenaan xisaab raacu waa waxa uu ku dhisan yahay adduunkan ama ganacsi ha ahaado ama xataa nolol maalmeedka xataa ha ahaado hadda ama adeeg waxaa laga yaabaa gurigaada inaad xisaab ku wado muxuu guriga u baahan yahay oo qarasha maxaa guriga soo gala moogta saasoo ay tahay xisaab raaca hadda annaga aan ka hadlayno maanta iyo beriba aan ka hadlayno insha Allah waxaa weeyaan xisaabka xagga dhaqaalaha weeyaane xagga ganacsiga weeyaane waa maxay xisaab raac waa bandhiga maaliyadeed ee ganacsiga ah tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad leedahay shirkad weyn oo iibiso baabuurta sida ama taraag camal oo kale waxaa laga yaabaa inay 100 taraag ku yeelaan baa laga yaabaa 100 taraag ay kugu kaceen $1 milyan oo baarka kugu jiro shaqaala ku shaqeynayo kila kugu socoto canshuura bixinaysa ama waxa faa'iideysa ama qasaara galaysa haddaad wax faa'iidana dee canshuur baa laga rabaa tusaale ahaan hadda gobolkan aan joogno Ohio waa gobol asna gooni u canshuuro ganacsatada u canshuuro dowladda ay ku canshuurayso tii federaalka ahaa saasoo ay tahay xisaab raacaas baa la rabaa inaad ku soo bandhigto wixii soo galay ganacsigaada iyo wixii ka baxay wixii faa'iido kala ah taasi waa qayb ka mid ah waxaan ka hadlaynaa waa xagga canshuurta ka soo bood haddii aan u guda galo tusaale ahaan waa lagu yimid Umar waxaa lagu yiraahday
dealershipkan aan leedahay baan rabnaa inaan kaala wareegno ama aan gadanno haddiise xisaab kuu oolin maxaad ku dhihi kartaa halahan baan ku iibinayaa oo waxba kuuma qorno so muhiimadda ay leedahay in mar kasta xisaab raac aad leedahay waxaasaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a tusaale ahaan anoo kala laga yaabaa inaan kula shirkoobo oo aad sheer camal iga iibinayso waxaad dhisaa cabdiweliyo sheerka waxaan kaaga iibinaya 1 milyan halkaas milyan waa inuu u qalmaa waxaad iga iibinayso waxaan kaa codsanayaa warbixin oo ah maxaa ku soo galay sanadkii lasoo dhaafay ama 2 sano lasoo dhaafay maxaa canshuur oo celisay waxaasoo dhan waxay ku salaysan yihiin xisaab raaci waddanka Mareykanka sidaa sheegtay waa muhiim waa xisaab raac qofka Soomaaliyeed ama qofka ganacsiga leh hadduusan xisaab raac u sameynin maxay tahay qatarta ka dhalan karta arrintaa qatar weyn baa ka dhalan karto walaalkay haddii dib u laabanaya tusaale ahaan dadka hadda inta badankood ganacsiga ku leh waa dad aan dhihi karo waa dad kusoo qaangaaray waddankii hooyo kuna soo caqliyeystay waddankanaga ganacsi wuu lahaa laakiinse ganacsiga saan oo kale ah oo u casraysan muusan lahayn sababtoo ah waxaa laga yaabaa qasnaji inuu kuu joogay dukaanka ama meheradaba qof wax ka iibiyey wax ka qaaday badeecadii kuu taada la iibiyey adna aad faa'iide heshay laakiinse casriga halkaan oo ah canshuurta muxuu ahaa badeecada canshuurta iibka waxaas ma lahayn waxaa laga yaabaa askari koofiyad wato qori wato boono wato intuu ku imaado uu ku dhaho cumarow halahan baa lagugu soo canshuuraa bixi adna meeshii aad ku bixiso baa laga yaabaa laakiinse askarigaas waddankanaan ka hadlayaa moogta waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo wax hadda aan ku sugannahay iyo wixii aan awal ku sugnayn askarigaas waxaa laga yaabaa inuu boonadii qaado boonada celiyo adna saas adiga laga tagay halkaanayto way ka weyn tahay muxuu ahaa arrinta waxay uga weyn tahay dadkanaga badankood aniga ma dhahayo waa dhammaantood badankood dhaqankii xagga yaalay baan isleeyahay bay soo qaateen runtiina way soo qaateen waayo anaa arko markay ii yimaadaan oo ay rabaan inay wax soo bandhigaan badankood waxba diyaar uma ahan wixii markay diyaar ahaynna dee waxaa la kulmaysaa caqabado badan waayo waxaan diyaarsanayn wax looma diyaarin karo waxaa laga yaabaa qofkii inuu ganacsiga iska iibinayo in ganacsigii lagala wareegayo ama xataa in canshuur lagu soo dalacay markii xataa canshuurta lagugu soo dalaco oo dowladda ku tiraahdo 30 beri gudaheeda waxaa noga soo jawaab waxaa lagaa rabaa macluumaad baa lagaa rabaa information baa lagaa rabaa bixiso haddii dee aadan haysan wax kuu dejisan wax aad gudbinaysa ma jirto kabacdina waxaad noqonaysaa qof eedaysane ah oo lagu soo rogay canshuur xaddaaf ah ganacsiga aanan lahayn xisaab raac ama nidaam xisaab raac ganacsigaas siduu u hergelin karaa nidaam xisaab raac oo waafaqsan sharciga waddankan horta mar kasta waad bilaabi kartaa wixii waxaana ku bilaabaysaa siyaabo kala duwan waxayna ku xiran tahay ganacsigaad ku xiran tahay ganacsiga hadduu yar yahay waxaa laga yaabaa inaad soo gadato software yariisa oo aad ku xirato computerka iyo bangigaada aad isku xirto kabacdi wixii bangigaada ku dhacay iyo wixii ka baxay halkaas ayaad kala xiriiraysaa oo adiga xataa muxuu ahaa macaamilan karo oo la socon karo kabacdi qof anoo kale ah baad sanadka u imaan karta xalada cabdiweliyow softwarekan baa leeyahay softwarekan baa wax kasto ii hago bal fadlan walaalo intaad canshuurta buuxin ba ila fiiri wixii qaldana ila sax wixii saxsanna dee ku buuxi canshuurta kaas waa ganacsataha yar weeyaane haddaan u gudubno ganacsataha weyn oo dee dhowr dukaan leh ama dhowr meel leh laga yaabo inuu 50 shaqaale camal leeyahay dee ganacsatahaasayto runtii wuxuu u baahan yahay qof anoo kale u baahan yahay oo xisaabiye ah ama CPA ha ahaado ama accountant ha ahaado ama bookkeeper ha ahaado oo wixii u kala hago ma garatay oo canshuurtii dowladda hoose bixiyo tii gobolka bixiyo tii federaalka bixiyo asagana xataa talooyin siiyo oo bishii hal mar la fariisto ama haddii xataa uu awoodi waayo bishii hal mar 3 bil uu la fariisto hadda aniga abad camal salahan dadka clientiga iya waxaan isku dayaa haddii bishii aan la kulmi waayo in 3 bil aan la kulmo dadku waa iska mashquuli karaan haddii xataa uu taa imaan waayo waxaa waajib ah
in bisha October markay dhamaato oo ila kulmo taas daa because 10 bil baan haysanaa oo macluumaada aan raahno Umar waxaana ku soo galay waxaana ka baxay waxaana faa'iido ah maadaama halahan faa'iido tahay hadda saan ku socoto sanadka dambe waxaa lagu lahaanayaa canshuur halahaasa qofkii waa sii diyaarinaysaa markuu ku imaado January ilaa April qofkii wuxuu jaa og yahay inta u dhaxayso oo canshuur ay bixinayso laakiin haddii wixii aad lahayn oo bishii April aad imaado wixiina ay iska orod yihiin waxaa laga yaabaa inaad ku farxin wixii lagu soo bandhigay xataa waxaa laga yaabaa xataa markaa in wixii qalad yihiin laga yaabaa oo hadhowdi markii dawladdu wixii ay heshay ay tiraahdo Umar waxaad soo gudbisay iyo waxaan anaga ka hayno isma lahan maadaama ay islahayn waan ku canshuuraynaa waanu ganaaxaynaa bixi so waa sababta dadka aniga aan ula taliyo aan dhaho adiga waa yar tahay kana ku fiican adiga waa dhexaad baa tahay kana ku fiican adiga waa weyn tahay oo halahana ku soo galo waxaad u baahan tahay qof anoo kala ah waa u baahan tahay qasabna xataa maaha qofka anoo kala inuu magaalada Columbus kula joogo adigu waa inaad heshaa qof adiga aad la macaamili karto wixii qabado leh Cleveland buu joogi karaa Madison Wisconsin buu joogi karaa Sierra buu joogi karaa hadda ani kula hadlaayo magaaladan Columbus Ohio dhowr client baa ku leeyahay oo aan u suubiyaa accountingkii iyo bookkeepingkii iyo canshuurtii waxaan ku xiriirnaa aaladda Zoom aan ku xiriirnaa haddii dee arrintu ay Zoomna ay ka badan tahayna waa soo duulaa waa imaadaa 2 maalin baa la joogaa waana gudanaa waajibkanaga marka waxaa leedahay qofka ganacsadaha Soomaaliyeed meel walba ha joogay uu kula soo xiriiri karaa oo kala talin kartaa arrinta xisaab raaca ha qasab maahan in uu qofka uu ku kooban yahay kaliya Ohio muhiimadda waxaa weeyaan qofka aad la macaamilayso khibradii ma leeyahay gobolkana ma ka diiwaan galaysan yahay gobolada kalena ma ka aqbalaya tusaale hadda ama hadda shahaadada waa CPA oo loo yaqaano certified public accountant weeyaan waxaan ka diiwaan galaysanahay gobolka Washington saasoo ay tahay waa in raacaa xeerka u dagsan Board of Accountants gobolkayga laakiinse gobolka Washington iyo gobolka Ohio iyo gobolada kale hal waxa ka wada dhaxeeyo oo ah kaanaga Ohio annaga naga diiwaan galaysan xaq buu u leeyahay in uu caawin karo ganacsato joogo gobolka Washington adna aad ku xireenin in uu halkaas ka diiwaan galiyo Washington wuxuu leeyahay annagana mid annaga naga diiwaan galaysan in asna xaq uu leeyahay waxaa jiro sharci loo yaqaano interstate commerce isku galka gobolada xagga ganacsiga waana sharci oo federalism annaga kullayba ma iibinayno bagaash ma iibinayno oo service baa iibinayna laakiin se wuxuu soo dhexgelayaa ganacsiga soo dhexgelayaa so qasab maaha inuu qofka adiga kula joogo habkee ku fiican xagga xisaab raaca midda cashka ama midda kale horta dadkan waxaan kula talayaa Umarow inta aad ka fogaan karto cash ka fogow sababtoo cashka record ma lahan tusaale ahaan hadda ani gobolkan waxaan ku joogaa booqashaan ku joogaa markaan adeeganayo oo hoteelka aan iska bixinayo gaariga aan kiraysanayo muqaayadda aan aadayo waan awoodaa intaan bangiga tago ATM mashiinka kala soo baxo cash oo aan dhammaan dadka aan la macaamilayo cash wada siiyo laakiinse waxa kale la arkayo waxaa waaye inaan lacag kala baxay bangiga soo ma commerce kala baxay laakiinse lama arkayo meelaha aan tagay laakiin haddii aan credit cardkayga ama debit cardkayga isticmaalo meel alla meeshii aan tagay arkaya waxaa la arkayaa hotelkii aan seexday gaarigii aan kireystay meeshii cunto aan ka cunay hadhowna dawladda maxaan u bandhigayaa inaan safar ku jiray oo aan diyaarad ku imid gaari kireystay hotel seexday cuntona cunay boonooyinkina waa kana oo bangigu ku qoran yahay soo qarashkii aan sheegtay dawladdu waa aqbalaysaa ma diidi karto sababtaa wax cad weeyaan laakiin haddii aan la soo baxay $500 oo cash ah 500na aan isticmaalay oo sax aan u isticmaalay hadhowdii waa iga lumayaan boonooyinkii laakiinse bangiga maxaan ku arkayaa keliya $500 laakiin see u jijibinayaa sideen kala dhigayaa waa inaan dhahaa ha
$200 hoteelan ku bixiyey $100 garan ku raystay waa qiyaasaya moogta inta soo hartay cunaa ku cunay waayahay waa lagu ogolaaday caddaynna sii aw caddayntii waxay haystaa keliya $500 boona haysta intii mashiina ma hooyadaa baa siisay ma walaalkaa baa siisay caddayn ma jirtee sababtaan ku dhahay waaye ma fiicno in kaashka lagu adeegto marka keliya uu bannaan yahay kaashka in lagu adeegto waa marka qofka kuu adeegayo uu kugu qasbo in uu kaash keliya qaadanayo hadduu qaatana dhib ma lahan boonadii aad ku soo bixisay bangiga korkeeda waxaa ugu qortaa cabdiweli baa wuxuu ii suubiyey rebeer ii suubiyey ama cabdiweli baa wuxuu ii suubiyey xayeysiin ii suubiyey boonadaada qaado meel gasho maxaa ku qoran waktiga la soo baxday taariikhdii maalinkii ee meesha ahayd waana qoratay dee dowladdu waa inay taas aamintaa laakiinse ha ka dhigeen caado mar kasta inaad kaash una soo bixiso dhawaanahan waxaa soo baxay barnaamijyo fududeeya xisaab raaca marka barnaamijyada adi ahaan maxaa dadka kula talinaysaa barnaamijkee ugu fudud ama ugu sahlan uu qofka isticmaali karo sida quickbook camal barnaamijyada aad baan u faxsanahay inaad quickbook soo qaado waxaa laga yaabaa in adiga saasaa laga yaabaa quickbooks waa runtii software aad u fiican looguna talagalay ganacsatayaasha yaryar waxaa loo yaqaano small business iyo xataa mid size business loo yaqaanaa saasoo ay tahay dee ganacsigu wuu korayaa waxaana laga yaabaa inaad waxaa laga yaabaa inaad ka korto quickbooks moogta so quickbookska waa mid waxaa kaloo jiro mid la dhahaa jiro fresh books baa jiro waxaa kaloo jiro la dhahaa jiro xeroxa jiro hay-adaha oo aan faa'iidoonka ahayn xataa kuwa gooniya leeyihiin waxaa loo yaqaanaa netsuite baa la dhahaa ablos baa la dhahaa aniga xataa kula hadlaya marka qaarkood xagga la talinta aan bixiyo waxaa ka mid ah inaad ka wareegto softwareka hadda aad isticmaalayso oo aad u wareegto mid kale sababta waxaa laga yaabaa cumarow in aad isticmaalayso software gooni u isticmaalayso payroll software gooni u isticmaalayso waxaa loo yaqaano HR-ka ama maareynta shaqaalahaada softwareka laga yaabaa inaad u isticmaalayso xagga maareynta maaliyadda ama xisaab raaca 3 software ku kala furan waxaa laga yaabaa inaad tirahdo warniyahow 3dan iskuma wadi karee ma heli karaa hal program 3 ii qabanayo ha wuu jiraa lacag baa kaa xigto ma garatay markii adiga aad go'aansato inaad taa gaarto aniga waxaan kuu suubinayaa baaritaankaasoo ah waan ku wareysanayaa waxaan ku leeyahay Cumar okay meeqa shaqaalaha leedahay halahaasaan leeyahay shaqaalooyinka degmooyinka dig hadda amal tusaale ahaan fiiriya gobolkan Ohio shaqaalaha cashuura laga jaraa hadda caawa waxaan fadhinaa Columbus aan fadhinaa soma Columbus canshuur gooni ka qaadaa shaqaalaha soma waxaa darisnaa Westerville iyo New Albany iyo Ghana u maynaya soma ayagana canshuuro gooni leeyihiin laakiin dhammaan shaqaalada ku shaqeynayaan soma xaruntaan imaanayaan adaa waxaa laga rabaa maadaama lagu shaqeynayo in aad Ghana canshuurteeda siiso New Albany canshuurteeda siiso Westerville siiso commerce laga rabaa maxaa u baahan tahay software dhammaan waxaas wada hagaya u baahan tahay waxaa laga yaabaa softwareyaasha qaar aad gadanayso tusaale ahaan in uusan baxataa Ohio uusan ugu jirin baa laga yaabaa oo waxaan ugu fiican yahay laakiin uu ku xun yahay socda waxaa laga rabaa ama anoo kale baa waxaa la rabaa inaan ku keeno softwareki markasto muxuu dabari lahaa dhammaan baahidaada fahmino so quickbooks wuu ka mid yahay laakiin quickbooks aniga waxaan dadka kula taliyaa dadka ganacsiga yar kula taliyaa wixii tusaale ahaan adiga 1 milyan wixii camal ka yar oo kale baan kula taliyaa ama konton shaqaale camal leh kota waliba xagga dadka service-ka suubiyo baan kula taliyaa inay isticmaalaan quickbookska sidee bay muhiim ugu tahay ganacsadaha ama qofka ganacsiga leh ama hay'adda leh inuu raadsado qof qabiir ku ah xagga xisaab raaca ama talooyin uu ka raadsado qof xisaab raaca ku wanaagsan intaan taa ka jawaabin waxaan rabaa inaan kula wadaago tusaale ahaan aniga bukaan baanahay waa jiranahay markaan jiranahay waa is aqaanaa koleyba moogtahay waxaan isleeyahay cudur baa ihaayo
ilaahay cudur weyn naguma ridee bini aadanka wuxuu ma gasta naftiisa wuxuu ka jecel yahay ma jiro waxaan suubinayaa dhakhtarkayga ka bilaabayaa soo ma haddii adeego waan ballan baan suubsanayaa waan ka jawaabay su-aashadas inaan kutusaar rabaa muhiimadda ay leedahay khabiirka dhakhtarka baa u tegayaa dhakhtarka baa ibaarayo waxaa laga yaabaa inuu jiro raajo ama MRI ama waxa loo yaqaano CT scan buu jiraya moogta wixii u soo laabanayo oo akhrinaya wuxuu ku leeyahay Cumar ibn Abdulwaliyo ni cudur saaniya saana ha jiro laakiin se aniga waxaan kaama daaweyn kariye waxaan kuu dirayaa special help kuu dirayaa dhakhtarka lafaha dhakhtarka kansarka waxa artay moogta kii baa aadaysaa kii baa kuu sharaxayo ama waxbuu kuu diri ama wax kale kuu diri haddaan ku soo laabto waxa waaye ganacsiga waa sidoo kale weeye markaadan wax macluumaada oo kayda aad haysan bukaan baad tahay waad jiran tahay waxaa sababtoo ah ma ogid waxa ku soo gelaya wax kaa baxayo waxay u dhigantaa adoo digsi daloolo wax ku karsanayo digsi daloolo wax ku karsan lahayd waa maya sababtoo ah softwarekaas waa alxankii daloolka kaa qabanayo waay softwareka keliya wax kuma qabanayo waxaa u baahan tahay khabiir softwareka kuu hago khabiiradoo kala duwan yihiin qof waxaa iska jiro wixii hadda baranayo dhib ma lahan amba hadda khabiir 20 iyo dhowr sano ku shaqeynayahay waagaan bilaabaya khabiir ma ahayn faamino in qofka ganacsatada ah uu raadsado dadkan waxaan ku dhahaa qofka anoo kala saddex wax ku raadsan dhahaa qof kasto uu leeyahay khibrad qof kasto uu leeyahay khibrad runaa fiican moogta personality qofka ma isfahmi kartaa qofka wax ma ku qarsan kartaa kharasi kama wado tuuganimo kama wado waxaa fiican qofka inuu daacad yahay oo aad tiraahdo warniyo Cabdiwaliyow waxaanan ka fakarayaa inaan suubiyo ganacsiga suubiyo walaalow anigu sharciga ma aqaani xeerka ma aqaani waxaan hadda ma suubin haddaan suubiyo ciqaab noocee ayaan la kulmi karaa soma qofka daacad buu ku yahay anna daacadan ku noqonaya waxaan ku leeyahay Cumar horta alxamdulillah maada suubin soma haddaad suubin lahayd saan iyo saana ku imaan lahayd niyaho ka taxadar ama ka digtoona wax suubinin baan ku leeyahay dee qofkii hadduu qof waayo arag yahay oo ilaahay caqli siiyey wixii fahmaayo uu ka digtoonayo ma suubinayo waayo qof la rabo in la ciqaabo ma jirto waxaan ula jeedaa qofka adoo kala ah ama adig kuu eg waa walaalka wuu ku ceeb qarin karaa adoo qaladka aan gelin su-aashaas waxaan ku darayaa qiso yar u dhacday 2 sano ka hor meel kastaan ka sheegaa qisadaaneeto gabar ajnabi ay soo wacday ajnabi waxaan ka wadaa waa Maraykan weliba waa African American gabadha ay soo wacday teleefonkayga ka heshay internetka ka heshay waxay tiraahday waxaan doonayaa inaan CBA-ga aan bedesho fadlan ma aqbalaysaa client cusub waxaan iri ha waan aqbalayaa client cusub waxay tiraahday balan ii qabo inaan waxaan rabaa ku bartaan rabaaye haddii aan isfahmi karno dhib ma lahan waan ballamiyey xafiiskaygay timid waan iswaraysanay badan ayadaa shirka codsatay moogta so ayadaa hormartay su-aalo i weydiisay waa uga jawaabay waxay dhan moogta aniga hal su-aalaan weydiiyey waxaan ku yidhi sababtee rabtaa maxaad u bedelinaysaa CBA-gaada basaan weydiiyey because qofkan jawa ay soo baartay moogta waxaan qabta iyo u weydiinaya moogta waxay tiraahday Cabdiwali waxay tiraahday CBA-ga qof xun ma ahan waxay tiri dhowr sano la shaqeynayay qof xun ma ahan qof khibrad fiican la waay waxay tiraahday waxaan dareemaa fiiriya waxaan dareemaa markaan su-aalo weydiiyo in waxay tiraahday waxaan dareemayaa inuu yasayo baan dareemayaa camal ama uu dhibsanayo baan dareemayaa anna waxay tiri ma rabta qofka uu dhibsado waxay tiri anigu jaahil baan ka ahay su-aashana waxaa ii geenaya jaahilnimo oo waxaan ka baqayaa lacalla haddii waxaanan ku kaco asagana uu hadhow waa bini aadano uu arki waayo ama ganaax ama interest la soo saaraa waxay tiraahday waxaan raadinayaa qof anoo kala ah ifaan hadalkayga qof anoo kala ah qof madow
african americana oo aan la macaamili karo oo su-aasha kasta oo aan rabo aan weydiin karo anna aan dareemi karo qofkaasi inuusan ijaajgareynaynin ama uusan idhibsanaynin waa tiri waxaan aaminsanahay qofkaas inuu idhihi karo heblaayo waxaan hasuubinna waa qalad anna oo wixii aan u baahnaa laakiin qofkii hadduusan igu dhahayn waxaan waa qalad waxaanna waa sax dhexdaan ku jiraa oo wax ma qaban karo waa tiri sadas keliya ayaan rabaa inaan u bedesho waxaan idhi soo dhawow saas ilaa hadda shaqaynaa macnaheeda waxaan ka wadaa taa waxaan ula jeedaa annaga Soomaali nahay dad waxaan nahay runtii isjecel is-aaminaad badan dadkanaga badankoodna oo dhibaatooyinka kala kulmo dowladda sare ama tan dhexe ama tan degmada jahilnima u geyso aqoon dariya u geyso waxaa laga yaabaa in uu ka xishoonayo su-aashaas inuu weydiiyo ninkaas ajaanibka ah laakiin aniga dee nin la tukanayo masaajidkii ilmaha anaga ay isla aadayaan dugsigii aan isla cabeyno shaahi muqaayadda markuu xafiiska igu imaado si private waa weydiina saan ku dhahaa cumar maya taas lagama ogaanaya saaxiib ha gelin dhibay ku keenaysaa ya so waa muhiimadda waa taan ka hadlayo ah personalityga iyo characterka ta saddexaadna waxaa waaye aaminaad qofka inuu aamin yahay aaminka lacagta keliya ma ahan waxaa ka mid a markaad u dirto email ama u dirto telefon u dirto qofka ma kaaga soo jawaabaya ma kugu soo celinaya hadda aniga clientkeyga waa forjeeya waxaan ku dhahaa cumarow bisha January ilaa April wixii u baratay May to December oo one day gudaheeda kaga soo jawaabay u baran because busy baan ahay moogta mashquul iga moogta haddii ay u qaado bari u qaadato ha dhibsanin waayo dee kumanaan qof oo baa igu xiran oo adoo kala ah oo rabo in loo buuxiyo canshuurta degdeg rabo moogta ya laakiin qofka inuu telefoon kugu soo celinayo inuu email ka soo jawaabayo in markaa u baahato uu xataa markuu u yiraahdo ku dhigi karo cumarow warniyo isbuucaan mashquulan haye isbuuca dambe ee aan ka dhigano taana waxay ka mid tahay aaminaadda saddex waxaan ahaanay dhaha qofku waxaan dhaha ku dhaha dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxaa jirta track wado haddana waxaa isleeyahay dhalinyaradii Soomaaliyeed xagge u rogmanaysaa xagge u guureenba xag track xaruntii waa intaas marka dadka Soomaalida trackana waxay ka mid yihiin dadka Soomaalida ugu dakhliga badan hadda Mareykanka oo waxay xareeyaan independent contracts qaar yihiin oo iskeeda u shaqeystaan marka canshuuraha ay xareynayaan way ka duwan yihiin dadka shaqaalaha oo xafiisyada ka shaqeeyo 9 to 5 ka ah marka dhalinyaradan Soomaaliyeed ee canshuuraha xareeyo badanaa waxay la kulmaan caqabado markay canshuurta xareeyaan in ganaax lagu soo kordhiyo ama in canshuurtii lagu soo celiyo ama IRS ayagii isqabqabsi weyn oo ka dhaxeeyo maxay tahay talooyinka u qaaska ah dhalinyarada track wada ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee track ka ganacsata aad siinaysid haddaan ku dhaho 30 kun bixi hal mar lacag badan ma soo diidi lahayn haddaan ku dhaho bishii iska bixi $2,000 soo ma yaro haye waayahay laba igu dhufo 12 24 soddonka maxaa soddonka jar 6 soo ma ha dhibaatada haysato track driver kaliya ma ahan dhammaan ganacsatada Soomaaliya waxaa waaye canshuurta lagu leeyahay ma horumariyaan sida beeman baan hadda adiga waxaa laga yaabaa gaarleen laga yaabaa gaariga naga bilka soo lacag soo lama qaato ya $500 baa lagala baxaa Soomahan account-kaada adiga waa wax aad ku talgashay waay oo aad dareemeyn haddii aad tagto dealerka aad tiraahdo 6 kun bixinaya adoo xataa haysto martiina ka baxdo so caqabadaha waaweyn ee la kulmaan dadka iskii u shaqeysto ama adiga aad tiri independent waxa waaye canshuurtii buu buuxinayaa bisha Maarso ama Abriil asagoo tusaale ahaan 500 kun suubiye tusaale ahaan 300 kun u qarsheeyay waxaa u soo hartay 200 kun u soo hartay isma laba u soo hartay xaasi carruur buu ku buuxsaday haddii dee qof anoo kala u buuxinayo wixii tixraacayo waxaa laga yaabaa dhaho cumarow 60 kun lagu leeyahay 60 kun waa la weyntahay lacag badan waayo runa fiican ma garatay wuxuu leeyahay niyo ma bixin karo si qofkii maskaxiin maxaa laga yaabaa inuu galo sidee qarashka u yaray sidee qarashka badin karaa
waxaan u yarayn karaa hadhowna waxaa laga yaabaa inay dhibaato waxaa laga yaabaa kaga imaado waayo haddii lagu suubiyo baaritaan qarashkii aad sheegatayna aad caddeyn weyso dowladdeedna dib u laabato bay qarashkii qaar ka mida diidaysaa se waxay kugu soo ganaaxaysaa canshuur dheeri ah ribo raacsan tahay ganaax ku jiro fahmino laakiinse ninkan haddii bil kasto laba kun oo dollar uu sii horumarin lahaa bil kasto ku dhufo 12 waaye 30 baa laga rabay maalinkuu buuxinayo kuma dhaha 30 kun lagu leeyahay 6 kun lagu leeyahay leeyahay cumarow soo ma waayo muxuu horumariyay hadii afar horumariyay ya soo dhibaatooyinka dadka naga haysato lacagta la horumarinayo waay waxa kale oo horumarinayo maashta horumarino ya gaariga waa la bixinayaa paymentie ma tan la horumariyo guriga la soo qaatay lagu soo qaatay bangiga bish waa la bixinayaa kana ma la bixiyo dadku waa in waxaas ay bartaan aniga ganacsiyaasha igu xiran badalka igu xiran waxaan bixinaa waxa loo yaqaano estimated qiyaas estimated tax payment aan bixinaa waa horumarinaa haddii dee ganacsiga uu hoos u dhaco tusaale ahaan oo khasaare aad gasho lacagtii aad bixisay oo dheeriga ahayd waa lagu soo celinaa because waxaa soo bandhigtay khasaaro adna waxaa ku talagalaysa faa'iido soo ma ya soo dhibka xaggu naga haystaa cumrow xagga iyo non profits hadii aynu galno non profitska Soomaalidu qaar way ku wareeraan waa very complicated dadka qaar Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in ganacsatada Soomaaliyeed ama non profityada Soomaalida il gooni ah lagu hayo marka xagga non profitska maxaa la canshuuri karaa maxaa la canshuuri karin non profityada maxaa looga baahan yahay inay xareeyaan horta waxaan ku soo koobeynaa kuwa annaga aan naqaano waa non profitka uu balaaran yahay xataa lobbying kuwa lobby gareeyo dowladda non profit weeyaane laakiinse xeer gooniya leeyihiin laakiin aan ku soo koobno kaani adiga naqaano oo ah hay-adaha faa'iidoonka aan ahayn tusaale ahaan case managementiga dadka la raadiyo shaqooyinka la raadiyo guryaha after school program sameeyo soma kaas ka hadlayna horta markii aad soo saaranayso sharciga 513ga wana buuxisaa formkii loo yaqaanay 1023 aad buuxisaa 1023 formkaaseeto wuxuu ku weydiinayaa su'aalo badan su'aalaha waxaa ka mid ah maxaa waaye missionkaada maxaa waaye visionkaada maxaa waaye programkaada waxaas ayaa soo bandhigaysaa baad qoraysaa waa codsigii moogta markii aad dirto oo sarkaalka IRS-ta u qaabilsan waaxdaanayto uu fiiriyo wuxuu ku siinayaa caddayntii ama approval ku siinaya adiga waxaa la rabaa inaad ku koobnaato waxaaseeto oo waxaas wax ka baxsan aadan gelin xaq waa u leedahay inaad gasho oo laguma dhahay ha gelin laakiinse maalinkii aad kaa gashaa oo waxaan ku saabsanayn hadalkayga si fiican u fiiriya waxaa laga yaabaa inay canshuur kugu tahay waajib sababtoo ah wixii lagu siiyey 513ga wax ka baxsan baad gashay arrintan waan inaan wax yar baan rabaa ku dheeraado haddii dee aad suubisay fundraising oo dad isugu yeertay meel baad keentay waxbaad iibisay waxaas lama fiirinayo because fundraising buu ka mid yahay laakiinse waxaa la diidayaa cabdiweli maxamed 501c3 oo ilmo u suubinayo tour program haddana intuu baxo uu dealership furto anigu waa extreamkaas dealershipka aad furanayso oo aad dhigayso baabuurta dhigayso iyo kan isma lahan laakiinse yes faa'iidada dealershipka ka timid waad ku caawin kartaa afterschool programka laakiin dowladda waxay ku leedahay mahadsanid lacagtan aad ka keentay dealershipka waa canshuuraynaa annaga sababtoo ah waa lacag ka baxsan 501c3 ka jawaab hashaada ya inaad ogaato weeyaan hadaba waa ka hadlaynay intaan soo galin oo ahaa waxaan isticmaalaynay webiga wuxuu leeyahay laba jin buu leeyahay soo ma adiga un jinka ka dhaafin xuduudarta imow halka xeerkaas ku jir ya fundraising suubi haddaa rabto hadda ama salan ku sinaya aniga clientkayga
baa fundraising suubsaday safarkii hadda ahaa meel casri ku suubsadeen alaabo baa la siiyey lagu siiyey donation waxaa ka mid ahaa waxaa loo yaqaano artifacts afrikaanka siino maaskiga waranka waxaas waa moogta wixii ana soo aruursaday wixii ani gatay mid $100 mid $50 laakiinse lacagtaas seeto yay ku laabanaysaa hay-addii bay ku laabanaysaa famino laakiinse fiiriya haddii hay-addaas seeto ay waxaan inta soo aruursato ay si caadi u iibin lahayd ka waran ya si caadi u iibinaysa ya aysan ku celinaynin programka waa hay-ad faa'iido doon adna waxaad ahayd faa'iido doon maad ahayn hope inaan ku fahansiiyey guntii gabagabadii barnaamijka aynu joognaa maxay tahay talooyinka ugu dambeeyo ee aad siinaysid ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka hal talo baan siinayaa waana taladii aan siiyey markii aan joogay Minneapolis dadka waxaa laga yaabaa in taladan ay rastaan baa laga yaabaa taladan waxaan kusoo koobayaa waxaan dhahaa sida aad u dhoorto salaadaada sida aad u dhoorto salaadaada u dhowr xisaabaadka ganacsigaada waddankan runtii waa waddan sharci ku shaqeeyo waa waddan waraaq keliya wax lagu aqbalayo cumarow maanta intaa baxdo meel iskama aadi kartid adoo aan aqoonsi wadan aqoonsiga maxaa waraaq weeyaan wax kasta waraaq waaye saasoo ay tahay haddii waddankan la rabo in meel lagaa soo galo meesha ugu fudud ee lagaa soo geli karo bangigaada ma ahan gurigaada ma ahan gaarigaada ma ahan waa canshuurta aad celisa weeyaane soo canshuurtaada ka taxadar sidii aad salaada ugu taxadar lahayd waayo foomka aad saxiixayso waxaa ku saxiixaysaa aniga waa saxiixnaa iska saxiixnaa moogta waxaa ku qoran waxaan ku dhaartay in waxa aan soo gudbinayo ay sax yihiin beenna aanan sheegeyn waxa aan soo gudbinayo waa dhaaranaysaa berri insha allah markaan kudanno baan kutusayaa foomka haddii aan maxaa waaye under the penalty of perjury I swear the information I am providing is true, accurate to the best of my ability waa ku saxiixaysaa waa dhaar wey saasaan ka wadaa waa talada aan dadka siin lahaa cumarow adaa mudan walaalkii cumar waa tahay daawadayaal qoraysigii gaarka aynu la yeelanaynay khabiir xagga c p a-ga xagga ganacsatada la talintooda cabdiweli maxamed cabdiweli c p a ayaa maanta barnaamijka inoogu marti ahaa barnaamijkeenina halkaa ayaanu kusoo afmeeraynaa mudane aad baynu kaaga mahad celinaynaa waqtigaada qaaligaadna siisay adaa mudan mahadsan walaalkii sharaf baa ku leedinahay meesha cusubto intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid ka xiga waa dhammaan bahda s b t v oo idin leh sidaa iyo amaana allah asalaamu calaykum